أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، ولا لها قيمها بدنو ميل والبو أد جوجتان يسي والبو أد نلا سعتان وحلقة لبعض برنامج كيني برو يعني دعوينكي كسقنا هذا نبينا عليه الصلاة والسلام وجامعها دعاء الشناد وأن من تقادنينه واللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، ومعنى هذا يهي إلهي وحنك ويدي سنة المعافاة في الدنيا والآخرة، بدبادو أيانك ويدي سنة إلهي الدنيا آخرة. المعافاة يعني وحالو لجيدا إن إلهي تبارك وتعالى وكابد باديو لباتك كستو وحوالبو كوال والقلي كرو وحوالبو لباتك وقيس كرو إنو إلهي كابد باديو تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. الدنيا آخرة به دعاء سوى دعاء جامعه لفظ جيدو آد بو يريهي قف الباب بركره قف دقه وايلها بركره المها يريرا لبركرا. مع ذلك وحي حنبارسنتهي معاني فربضا waayo wax aan qaadanaynaba waa ducooyinkii nabiga oo jaamica ahaa oo adduun iyo aakhiraba kulminayay walaalayaal. marka ducadani macaani fara badan oo yacni alfaad fara badan in lagu soo koobo macnaha yacni sharaxaad badan u baahan laheeday ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu soo koobayaa yacni wax yar oo qof kasta uu xifdi karo laakiin macaanidii dhammeedba ay ku dhex jirto walaalayaal. marka ducadan waa duco qiimo badan sidii macnaheeda aad u jeedid inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala kugu badbaadiyo adduunyo wax allaala wixii ku dhibaataynayo wixii kugu walwalgelinayo uu kaa badbaadiyo, aakhirana aad ku noolaato oo aydana aad badbaado. waa wax qiimo badan, waa waxa qof walba uu raadinayo, waa waxa qof walba uu ka warwarayo walaalayaal. marka waxaa loo baahan yahay ducadan inaan ku dadaalno. nabiguna calayhi salaatu wasalaam marka uu ducadan ka hadlayay xadiiskii uu nabiga ka wariyay abi hurayra, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maa min dacwatin yadcuu biha alcabdu afdala min allaahuma inii asaluka almucaafaata fi ddunyaa waalaakhira. duco oo qofku ku duceysto addoonku uu ku duceysto ma jirto oo ka fadli badan allaahuma inii asaluka almucaafaata fi ddunyaa waalaakhira. ducada lixaad oo aan maanta soo qaadanayno oo ka mida ducooyinkii jaamica ahaa oo nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam waa ducadan shaashada idinkaga muuqato. allaahuma aslix lii diiniya aladii huwa cismatu amri wa aslix lii dunyaaya alatii fiiha macaashii wa aslix lii aakhiratiya alatii fiiha macaadii wajcal ilxayaata ziyaadatan lii fii kulli khayr wajcal ilmowta raaxatan lii min kulli shar. oo macnaheedu yahay allaahuma aslix lii diini, ilaahayow diintayda ii hagaaji, ilaahow diintayda ii hagaaji. waxa ugu horeeyo qofki inuu ka warwaro loo baahan yahay oo inuu ilaahay weydiisto loo baahan yahay waa diinta. yacni diintu waa macnaha aas-aaskii dhammaa, waa wixii dhammaayo muhiimadii dhammeed waaye. qofku waxa uu ku badbaadi lahaa aakhiro waaye. qofka maalinta aakhira wax lagu kala sareeyo, waxa jannada lagu helaayo, wax lagu guulaysahayo waa in diintii aad macnaha diintaadu ay ku hagaagsanaato. diintu inay ku hagaagsanaato waxay macnaha ku xiran tahay in lagaa helo laba shay, in lagaa helo yacni ilaahay waafaji labadaas shay inaan xaqiijiyo. waa shayga ugu horeeye in yacni diintaydu ay noqoto diin ikhlaas ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala dartiisa aan ula jeedo. waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dad badan oo acmaal fara badan samaysan jiray oo dadaali jiray oo qur-aanka si fiican u akhri jiray oo sadaqaadka aada ula bixi jiray oo jihaadka ku dadaali jiray, haddana acmaashaasi waxba aysan u tarin maalinta qiyaamaha oo yacni naarna mutaysanayo walciyaadu billaah. waxaana u sabab ahaa waxaa ka maqnaa dadkaasi ikhlaaskiyaa ka maqnaa. marka ilaahu diintayna noo hagaaji, ilaahu nagu arsuq diinkayna inaan ula jeedno ikhlaas iyo yacni ikhlaas iyo waxaa layska rabaa yacni iyo thawaab ayaa layska rabaa. shardiga labaad waa in yacni waxaan ay thawaab yihiin yacni inay waafaqsan tahay diintaadu hadyigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, oo waxyaaba adiga jeebkaada aad ka samaysatay iyo waxyaaba shaydaan uu kuu meeriyey aadan diin ka dhiganin. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري
kaasoo yacni cismatu amri. cismatu amrina waxaa loola jeedaa yacni shaygii dhammaay oo aan ku badbaadi lahaa adduun iyo aakhiro, oo yacni iga badbaadi lahaa naarta, oo naarta aan uga badbaadi lahaa waa diinka. wa aslix lii dunyaaya, ilaahu adduunyadayda ii hagaaji, allatii fiihaa macaashii, taasoo anigu aan ku noolahay, noloshaan adduunyo aan ku noolahay ilaahu ii hagaaji, oo yacni adduunyadan ha igu fadaaxaynin, oo adduunyada waxyaabaha aan u baahanahay oo laga maarmaanka ilaahay uu ii sakhiro ii hagaaji. wa aslix lii aakhiratii allatii fiihaa macaadi, ilaahu aakhiradayda oo meeshii marjica aheed oo meeshii loo laabanayo oo meeshii xaqiiqada aheed ilaahay uu ii hagaaji. aakhiradaada in lagu hagaajiyo waa laba arrin: in ilaahay tabaaraka wa tacaala naar uu kaa badbaadiyo, ilaahay tabaaraka wa tacaala janno uu kugu arsuqo. intaas haddii aad heshid yacni aakhiradaadii way ku hagaagsanaatay. waa wax weyn oo ilaahay tabaaraka wa tacaala in la weydiisto aad iyo aad ay u mudan tahay. wajcal ilxayaata ziyaadatan lii fii kulli khayr, yacni noloshayda iyo waqtiga aan noolahay ilaahay uu ii ziyaadi, iguna ziyaadi khayr kasta ilaahay uu ii ziyaadi. ilaahu cimri dheer isii, khayrkana ilaahu rabbi ii ziyaadi. waayo xadiiskii nabiga wuxuu ahaa qofka waxaa ugu khayr badan, yacni dadka waxaa ugu khayr badan qofkii cimrigiisa ou dheeraado cibaadadiisuna ay wanaagsanaato ayaa dadka ugu khayr badan. khayru nnaasi man daala cumruhu wa xasuna camaluh. wajcal ilmowta raaxatan lii min kulli shar, mowdka haddii shar iyo balaayo iyo fitan iyo dhibaato ay timaadane, yacni xadiiskii oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday ducadii kale, yacni haddii addoomankaada oo idaa aradta, yacni haddii aad addoomankaada la doonto yacni fidno faqbidnaa ilayka hayra khazaaya walaa maftuuniin, ilaahayow xaggaada noo qabdo anagoon kuwa fidnaysan aanan ahayn. marka yacni intii dhibaato iyo balaayo iyo fasaad aan geli lahaa, ilaahayow macnaha geerida raaxa iga dhig shar kastaba. yacni ducada waad ka dhadhegteen macnaheeda, qiimaha ay ku fadhidana waad ogaateen. marka maxaa laydinkaga baahan yahay walaalayaal? ducadan aad baa loo ammaanay. xadiiska abi hureyra sidii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ugu duceysan jira ayuu tilmaamaya, oo nabigu uu ku duceysan jira sala allahu calayhi wasalam. yacni a'imada iyo culummada muxadisiinta waxay tilmaamayaan ducadan maadaama ay kulansatay sida aad macnaheeda ka dareenteen adduun iyo aakhiro iyo wax walba qofku u baahan yahayba, maadaama ay ku dhex jirto, waxaa aad iyo aad u habboon in saqda dhexe lagu duceysto. haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala ducadan adigoo ku duceysanaysid ou saacatul ijaaba ku waafajiyo, saciidta sacaadatan laa shaqaawata bacdaha, waxaad liibaantay liibaan oo shaqinimo aysan ka dambeynin. walaalayaal, ducada lixaad oo maanta aan soo qaadahayno oo ka mid a ducooyinkii nabiga ka sugnaada calayhi salaatu wasalaam waa allaahuma inii as'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa. allah 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 ma axsanahaa warabbi lkacba. maxaa wanaag badiyay qofku inuu ku duceysto allaahumma inii as'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa. ilaahu waxaan ku weydiisanaa hanuun, ilaahu waxaan ku weydiisanaa alla kacabsi, ilaahu waxaan ku weydiisanaa dhoorsanaan, ilaahu waxaan ku weydiisanaa deeqsinimo, qaninimo ayaan ku weydiisanaa. waa duco qiimo badan, waa ducooyin lagu duceysto. ducada ugu qiimaha badan ay ka mid tahay. nabigu calayhi salaatu wasalaamna wuu ku duceysan jiray ducadan, oo waxay ka mid tahay ducooyinkii nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam. ducada sideedaad oo maanta aan soo qaadanayno oo ka mid a ducooyinkii nabigaoo jaamica ahaa waa allaahumma yaa muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik. allaha quluubta gedgediyow qalbigayga diinkaada ku sug. allaha quluubta gedgediyow qalbigayga diinkaada ku sug. allah 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 allah. quluubtu way yacni qalbi waxa loogu magacaabo waa isgegedintiisaa badan. qofkii hadda fiicnaayad waxaad arkaysaa isigoo isbedelay oo haddana yacni si kale isku bedelaad arkaysaa. marka ilaahow qalbigayna diinkaada ku sug. waa duco qiimo badan. ducooyinka xilli sujuudka aad iyo aad in loogu dadaalo ay mudan ayay ka mid tahay. allaahumma yaa muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa diinika. ducada sagaalaad oo maanta aan soo qaadanayno waxaa ka mid ah allaahumma yaa musarifa alquluubi sarif quluubanaa calaa daacatik. allaha quluubta gedgediyow, allaha quluubta yacni gedgediyow quluubtayna daacadaada ku gedgedi. ilaahu quluubtayna daacadaada ku sug rabbiyow.
ducadaas aad bay u qiimo badan tahay iyadana. ducada tobanaad oo ah ducada ugu dambeysa oo maanta aan soo qaadanayno waa allaahumma hdinii wasadidnii, ilaahu ihanuuni, ilaahu itoosi. allaahumma hdinii wasadidnii waa ducaad u gaaban laakiin macno fara badan ximbaarsan walaalayaal. allaahumma hdinii wasadidnii. allah 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 allah. cali waxaa laga wariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu dhahay uu leeyahay qul dheh allaahumma hdinii wasadidnii. waa kaas waxaad dhahdaa allaahumma hdinii wasadidnii. waa kaas intaasaan kusoo koobi doonaa insha allahu tacaala mowduuceynii qiimaha badnaay. intii aan ku kulmi doono mowduucan mowduuca xigo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. waxaan idinka codsanaa inaad muuqaalkan sii sheergaraysaan.